وبركاته داوديال كسر دواده ورك التلفزيون كقرنك وأنا دي سجدين يعني محمد علي أحمد روري خذ بضعة كده وندونتان ورك وحاكمده gudoomiyaha baarlamaanka galmudug oo sheegay in la ballaarinayo baarlamaanka maamulkaasi si loo fuliyo heshiiskii ay kala saxiixdeen maamulka galmudug iyo ururka ahlusunna wal jamaa Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay waxa ay ku biirtay ama ay ka mid noqotay guddiga horumarinta sayniska iyo tiknoolajiyadda oo ay ku mideysan yihiin in ka badan 27 dal akhbaaraadka caalamka ee telefishinka idin hayana waxa kamid ah hay'adda MSF ayaa waxa ay soo saartay tirakoobka dadkii ku dhintay rabshadihii ka dhacay dalka Myanmar ee ka dhanka ah muslimiinta Rohingya intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka telefishinka haatan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan ku bilownay daawadayaal qodobkeena ugu horeeya ee warka gudoomiyaha baarlamaanka galmudug ayaa sheegay in la ballaarinayo baarlamaanka maamulkaasi iyadoo la fulinayo heshiiskii ay wada gaareen mas'uuliyiinta galmudug iyo sidoo kale ururka ahlusunna wal jamaa ee gobolada dhexe ee dalka deeqa Abuukar Jiino ayaa faahfaahinaysa baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug Cali Gacal Casir ayaa waxa uu ka hadlay dhaqangalka heshiiska dowlad goboleedka galmudug la gashay ahlusunna wal jamaa gudoomiyaha ayaa sheegay in heshiiskaas uu yahay mid isku keenaya bulshada gobolada dhexe gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in heshiiska ahlusunna qayb ay ka ahayd in baarlamaanka galmudug xubno ku lahaadaan taasoo shaqadeeda ka baarlamaan ahaan ay guda galeen fasaxa uu qaadan lahaana shaqooyin ayuu ku jiray runtii sida darteed ayay noqotay in maaragtay xogaa baarlamaanka la cusboonaysiyo maadaama maaragtay ay jirto dib u heshiisiin oo la doonayo in maaragtay ahlu sunna iyo dowladda goboleedka galmudugba heshiis ay gaareen in la dhaqan geliyo la rabo sida darteed ayaan maaragtay rabay inaan baarlamaanka ogeysiiyo maanta inuu xiran yahay oo ay isu soo noqon doonaan bisha February hadii la yiraahdo taariikhda aan soo sheegay hadda deeqa Abuukar Jiino warbaahinta qaranka Soomaaliyeed cadaado Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay waxa ay ku biirtay guddiga horumarinta sayniska iyo tiknoolajiyadda oo ay ku mideysan yihiin ilaa 27 dal Duraan Xasan ayaa inoo hay warbixintani Soomaaliya waxay markii ugu horeysay xubin ka noqotay guddiga horumarinta sayniska iyo tiknoolajiyadda ee loo soo gaabiyo COMSAT oo ah guddi ay ku mideysan yihiin 27 dal oo adduunka dalalka ku mideysan guddigan ayaa isdhaafsada aqoonta dhanka PhD-da iyo masterta iyagoo sidoo kale wadaaga xarumaha cilmi baarista iyo isdhaafsiga ardayda shirkan ay Soomaaliya uga mid noqotay xubinnimada ururkan ayaa waxa goobjoog ka ahaa مسؤولين كسعودية الصومالية وأي كم دهايين سفيرك الصومالية باكستان مرو خديجة محمد مدحي هوري هيئة عافيمات كادوكا دكتور خليل بلي مدحوينيه هوري قلب ذوق مدنة عبد الكريم حسين قوليد سفيرك الصومالية مريكان كمدنة أحمد عواد هي مسؤولين كلا مدحني كسعودية لنك أورورك كسوق قبل الشركان ayaa gacmo furan ku soo dhaweeyay xubinnimada Soomaaliya iyagoo sidoo kale hambalyo buuxda u diray Soomaaliya xafladda dhaqangelinta heshiiskan ayaa waxa khudbad ka jeedisay safiirka Soomaaliya ee Pakistan Marwo Khadijo waxayna sheegtay in Soomaaliya ay si weyn u soo dhaweynayso xubinnimada ururkan iyadoo sidoo kale sheegtay in heshiiskan uu horay Soomaaliya ugu saxiixay wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dawladda Soomaaliya Mudane Cabdi Daahir balse haatan uu si toos ah u dhaqangalay The Federal Republic of Somalia has signed international agreement to join international science and technology of sustainable and development in the South Process on the 9th of November 2017. As it is 26th of member states, today I am very pleased to participate in the celebration of the membership of the Federal Republic of Somalia to the famous Concept Institute and Information and Technology, which is indeed a well-known institute of higher information
well-known institutes of higher education. I would say, मुझे पाकिस्तान और सोमालिया के लोगों के रहन सहन में कोई फर्क महसूस नहीं हुआ. dhanka ururka ayaa waxaa goobta ka hadlay madaxa fulinta ee komsad mudane Junayd Saidi oo sheegay in ay Soomaaliya tahay dal muhiim ah oo dad yar u badan ay ku nool yihiin kuwaas oo ka faa'iideysan kara fursadaha ururkan ee dhanka aqoonta. Taking the opportunity, I must tell what COMSET has been doing and what COMSET is. It is because that I'm trying to persuade other people to become the members of COMSET. We were fortunate, lucky that Somalia became the 26th member of COMSET. I thought why it is so that it has become so quick and so fast. Perhaps it was the reason that there was a lady ambassador. dad badan oo Soomaaliyeed ayaa soo dhaweeyay in Soomaaliya xubin ka noqoto ururkan waxaana jira arday badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo barta ama horey u bartay cilmiga sayniska iyo tiknoolajiyadda waxayna ardaydan mustaqbalka ka faa'iideysan karaan fursadaha dhanka aqoonta. waxaa soconaya qorshe lagu dhisayo isbitaalkii hore ee magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyadoona dadaalada lagu dhisayo isbitaalkaasi ay wadaan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo ka soo jeeda deegaanka. Maxamed Amiin Yabarow ayaa tafaasiisha warkan inoo haya. deeqdan lacagta ah oo gaaraysa in ka badan 3,000 oo lacagta doolarka Mareykanka ah ayaa waxaa iska soo aruuriyay ganacsato Soomaaliyeed oo ku nool dalka South Africa kuwaas oo ka soo jeeda degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. deeqda lacagta ah ayaa lagu wareejiyay gudoomiyaha degmada Balcad waxaana uu ku sii wareejiyay gudiga dhismaha isbitaalka. محمود عمر فردير iyo Sheikh Abdulqaadir Maxamed Muudey ayaa loo soo wakiishay lacagta waxaana faahfaahin ka bixiyay lacagta Sheikh Abdulqaadir Maxamed Muudey. waa xaflad aan ku wareejinayno lacag ayna soo gaarsiiyeen ganacsatada reer Balcad ee ku nool South Africa gaar ahaan magaalada Cape Town. ragaas oo warmuud u yahay Abdullah Hamid Hassan Abdullah Ade iyo Maxamed Isaaq Muuse oo loo yaqaan madaxay lacagtaas oo cadadkeedu gaarayso $3,100. lacagtaas waxay ku soo dhiibeen dhismaha isbitaalka guud ee degmada Balcad. gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur iyo Xasan Maxamed Xaaji oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle ayaa ugu dambeyntii la hadlay warbaahinta. waxaa kaloo u mahadceliyaa walaalihii isxilqaamay ee soo aruuriyay lacagtan ee ku nool Cape Town ayna hormuud u ahaayeen Abdullaahi Maxamed Xasan iyo Maxamed Isaaq Muuse madaxii. waxaa leeyahay ilaahay ajra idinka siiyo wax loo qabanayo waa deegaankiini wax qabsanayna waa dadkii deegaanka u dhashay. marka waxaan rabnaa dowlad ahaan iyo hay'ad ahaan guud ahaan dhammaan waxaan bari ahaan u dirsanayna aba codsi ahaan u dirsanayna in garab istaagaan na garab qabtaan nala shaqeeyaan isbitaalkaas waa dhisnay waa bilownay nala dhameystiraan. waxaan rabaa marka dowladda federaalka inaan iyadana kelmad iraahdo madaxweyne Farmaajo meeshaan madax adeeg ka horeysa soo martay waxaad dareemaysaa degmada Balcad oo ah magaaladii laga kabi lahaa kheyraadka waddanka maanta inaysan isbitaal iyo jidna lahayn. waxaan rabnaa adiga iyo ra'iisul wasaaraha iyo guddoonka baarlamaanka inaan aragno gacantiina annagu ma fariisanayno ma joogsanayno waa u deymaadeynaa waa naloo xirxiraa oo inuu isbitaalku dhismo waa qasab. Maxamed Amiin Yabarow warbaahinta qaranka Soomaaliyeed degmada Balcad gobolka Shabeellada Dhexe. markana magaalada Gaalkacyo waxgarad ka soo jeeda mudug ayaa waxa ay gaareen magaalada Gaalkacyo si ay ugu biiraan wadahadallada nabadeed ee ka soconaya magaaladaasi sida warkan ay ku faahfaahinayso Safiya Sheekh Cali. waxaa maanta magaalada Gaalkacyo soo gaaray waxgarad ka soo jeeda gobolka Mudug kuwaas oo u yimid
inay ka qayb qaataan xal u raadinta shaqaaqooyin maalmihii dambe ka jiray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug kuwaas oo u dhaxeeya ganacsatada maamulada Galmudug iyo Puntland. waxgaradkan ayaa ka soo socdaalay magaalada Muqdisho caasimada dalka waxaana garoonka diyaaradaha Gaalkacyo ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta maamulka degmada gobolka iyo odayaal. duqa degmada Gaalkacyo Xirsi Yuusuf Barre ayaa sheegay in gobolka Mudug dadka degan ay nabad u baahan yihiin soona dhaweynayaan cid kasta oo xal u raadinaysa iyo dibashiinta laga wada deegaankan gacmo furan ku soo dhawaada odayaal waa deegaamadiinii waa dadkiinii dadaaladii hore oo socday bay kaabayaan ilaahayna waan ka rajaynaynaa inaanu meel fiican geyno. nabadoon Iimaan Xasan Jiiro oo ka mid ahaa odayaasha maanta soo gaaray Gaalkacyo ayaa faahfaahiyay ujeedka socdaalkooda. waxaan nahay guddi hordhaca oo nabadeynta iyo dib u heshiisiinta gobolka Mudug aan u soconno kuna soo biirnay raggii hore halkan hawlaha ka sii waday maamul iyo waxgarad iyo aqoon-yahan dadkii halkan joogaan ku soo biirnay waxaan rabnaa insha Allah tacaala inaan kaalin ka qaadano dib u heshiisiinta iyo soo dhaweynta dadka halka dega gobolka Mudug. gudoomiyaha gobolka Mudug ee Galmudug Cabdirashiid Xaashi Cartan ayaa dhankiisa sheegay in dadka gobolka Mudug ku dhaqan ay ka soo daaleen dagaalo isla markaana ay u baahan yihiin nabad iyo xasilooni oo ay doonayaan inay qayb ka qaataan oo xoojiyaan howlaha nabadeed ee muddada dheer soo socday ka socda gobolka iyo arrimaha ka dhiman oo u baahan in la dhameystiro. aad iyo aad bay markaysaa farxad gaar ah noogu tahay soo dhaw imaatinkiina sida aan anagu maamul ahaan u taagannahay oo u qeyla dhaaminayno leenahay sidaas weeye in shacbiga iyo waxgaradkana la taabageliyaan imaatinkaas bay odayaashu ahaayeen sidaas darteed waxaan leenahay ku soo dhawaada Gaalkacyo ku soo dhawaada gobolkii ku soo dhawaada dadkiina iyo shacbigiina waxaan u aragnaa inaad tihiin dadkii masaalixda kaalinta ku aad ka gali lahaa. Safiir Shaqale warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Gaalkacyo. halkaad warkaasi ka daawanaysaan waa telefishinka qaranka Soomaaliya. akhbaaraadka caalamkana daawadayaal waxaa ka mid ah hay'adda dhaqaatiirta aan xuduud lahayn ee MSF ayaa waxa ay soo saartay tirakoobka dadkii ku dhintay rabshadihii ka dhacay dalka Myanmar ee ka dhanka ahaa muslimiinta Rohingya. Cabdirashiid Nuur Ibraahim ayaa si anbaqaaday. hay-adda u dooda xuquuqul aadanaha suxufiyiinta iyo saraakiisha qaramada midoobay ayaa horay u diiwaangeliyay tacadiyo naxdin leh oo ciidamada ammaanka Myanmar ay ka geysteen gobolka Rohingya taasoo ay sheegeen qaxooti soo gaaray magaalada dalkaasi Bangladesh balse daraasadan waa macluumaadkii ugu horeeyay oo faahfaahin ka bixinaya qiyaasta tirada dadka Rohingya ee lagu dilay rabshadaha wadankaasi Myanmar. rabshadaha Rohingya ayaa ku bilowday weeraro ay qaadeen jabhadda Rohingya dabayaaqadii bishii Agoosto waxaana weeraradan ka dhashay howlgallo ay qaramada midoobay ku tilmaamtay isirsifeen. hay-adda MSF ayaa 6 daraasadood ka sameysay xeryaha qaxootiga bishii aynu soo dhaafnay. hay-addan ayaa ogaatay dadka ku dhintay rabshadaha oo ay caruur ka mid yihiin isla markaana 70% dadka dhintay ayaa ku dhintay rabshadaha wadankaas ka dhacay. warbixinta iminka la soo saaray ayaa miisaan u yeelaysa baaqyada loo jeedinayo xukuumadda Myanmar ee ku aadan in laga baaraandego suurtagalnimada in laga geystay dambiyo ka dhan ah wadankaas. guud ahaan daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa warkii telefishinka qaranka. intaa war midkaan la mid aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sida ay nabadgelyo.